kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan xogaa dunida ee ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaan ku soo gudbin doonaa xiisadda magaalada Boosaaso oo waji kala yeelatay markii isimada Puntland iyo Puntland ay isku hor yimaadeen oo sidoo kale qaar ka mid ah siyaasiyiinta ugu cuslaa ee Puntland ee waday waantani ay ku kala tageen. warbixin ayaan idiin soo gudbin doonaa iyo madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo loolankoodu maanta uu marayo meel cakiran isla markaasna si weyn ugu loolamaya doorashada maanta lagu wado in muqdisho ay ka dhacdo guddoonka ee guddiga doorashada iyo shakhsiyaad aad ugu dhow madaxweyne farmaajo oo loolan ugu jira inay ku soo baxaan iyo xogo kale ayaynu idiin soo gudbin doonaa. ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo ka tirsanaa guddiga siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedyada ee Boosaaso u tagay xalinta dagaalkii ka dhacay ayaa hadallo isu mariyay baraha bulshada. labada siyaasi oo ka soo jeeda Puntland kana mid ahaa senatarada baarlamaanka tobnaad ayaa isaga hor yimi qaabka loo xalinayo xaaladda magaalada Boosaaso oo dagaal u dhex maray ciidamada maamulka Puntland iyo kuwa hay'adda BSF. isku dhaca labada siyaasiyiin ayaa ka soo bilowday bayaankii magaalada Boosaaso ay ka soo saareen siyaasiyiinta ay ka mid yihiin Cabdiraxmaan Faroole, Cabdiweli Gaas iyo guddoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland oo lagu daray magaca Cumar Cabdirashiid oo laga soo horjeeday go'aamada ka soo baxay isimada dhexdhexaadinta ka waday magaalada Boosaaso iyo dhinaca agaasimaha ee hay'adda BSF. Cumar Cabdirashiid ayaa iska fogeeyey bayaankaasi kuna sheegay inuusan waxba kala socon wax tala'ana uusan ku lahayn, taas oo ka cadhaysisay Cabdiraxmaan Faroole oo ku eedeeyey Cumar Cabdirashiid inuu ka mid ahaa guddiga laguna wargeliyey bayaankani. waxaan caddaynayaa inaan lagala tashan oo aanan qayb ka ahayn bayaanka ka soo baxay iyo hadallada ee uu xabaarsanaa Boosaaso dhibka soo gaadhay xal iyo baaq nabadeed keliya ayaa dan u ah, ayuu sheegay Cumar Cabdirashiid. Cabdiraxmaan Faroole oo magaalada Qardho ka hadlayay ayaa sheegay in Cumar Cabdirashiid markii hore uu ka tegay iyadoo ay doonayeen inuu la joogo, kadibna qoraalkooda uu war ka soo daba saaray oo ay fahmi leeyihiin ujeeddada, wuxuuna beesha u ka soo jeedo uu kula taliyey inuusan siyaasad dambe uusan soo doonan. Cumar baan idinka dacwoonaynaa, Cumar ama dadka ku soo dara ama siyaasadda yuusan soo doonan oo uusan ka hadlin, ayuu yidhi Faroole. arrintaasi waxay keentay jawaab kale oo ka timi Cumar Cabdirashiid, taas oo u muuqatay inay ku socoto Cabdiraxmaan Faroole oo ku sheegay inuusan dhexdhexaad ka ahayn arrinta Boosaaso. wafdiga Boosaaso qabtay waxay ka koobnaayeen marjac, iisimo iyo mid siyaasadeed. wafdiga iisimada ee nooga fara dhoodhoobnaa arrinka daraf kama noqon mowqifka siyaasadda ee bari ay qaateen, sidoo kalena marjaca siyaasadeed inuu dhexdhexaad ku ekaado ayay ahayd, ayuu yidhi Cumar Cabdirashiid. odayaasha siyaasiyiinta ahaa ee Puntland ayaa hadda ku kala qaybsamay xalinta xiisadda magaalada Boosaaso, iyadoo markii hore iisimada ay ku kala qaybsameen, waxayna arrinta Boosaaso ay noqotay mid xalkeedu uu murugsan yahay. Cumar Cabdirashiid ayaa lagu waramayaa inuu ka xanaaqay go'aamada in si degdeg ah ay uga jawaabaan siyaasiyiintu, iyadoo Puntland aysan ka jawaabin. hadallada Faroole ayaa intaas ku ekayn, isagoo mar kale ka dheliyey baraha bulshada iyo warbaahinta hadalayn badan. wuxuu sheegay in Puntland ay ku leeyihiin dowladda dhexe hal wasiir oo keliya. taasi waxay su'aal ka keentay in Faroole uu ula jeeday halka wasiir ee dowladda federaalka u matala Garowe oo keliya inuu u aqoonsan yahay Puntland. Cabdiraxmaan Faroole, madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo dhawaan khudbad jeedinayay ayaa ku dooday in Puntland ay banaanka ka taagan tahay dowladda federaalka. Faroole dib ayuu u qeexay Puntland, sidaa darteed waxaa la is su'aali karaa haddii aasaasayaashii Puntland oo Faroole inuu ka mid ahaa uu sheegto ay isu beddeleen maamulka dhexe ee Puntland. wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka beeraha Siciid Xuseen Ciid, wasiirka duulista iyo garoomada Duraan Faarax
wasiirka kalluumaysiga cabdulaahi bidhaan iyo wasiirka arrimaha dibadda cabdi muuse siciid ayaa ka mid ah wasiirada ee ka soo jeeda puntland oo matalaya dowladda dhexe ee federaalka ah. hadalka madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole ayaa su-aal ka dhigay in la isweydiiyo inuu iloobay magacyada wasiirada mise cirifka siyaasadeed ayaa ka awood badiyey. waa suurtagal in senator faroole hadalkiisa uu yahay fariin ku saabsan sida uu u arko puntland maamulka xog ku adeegtaan oo si sharci daro ah ay uga tabcadaan iyo dhalinyaro fursado nololeed oo yari ay haysato. waxay ka mid tahay dhibaatooyinka badan ee haysta puntland, taas oo ay weheliso sicid bararka oo gaadhay halkii ugu sarraysay iyo khilaafkani ee ka soo cusboonaaday magaalada boosaaso. hase ahaatee puntland dhammaan dhibkeedani waxay ku eedaynaysaa dowladda federaalka ah. ma dowladda federaalka ah ayaa lacag soo daabacday oo 2 sariif puntland ka hirgelisay? ma dowladda federaalka ah ayaa dekedda boosaaso heshiis kula gashay DP World oo ilaa hadda aan fulin heshiisyada ay la gashay? habka federaalka ah ee faroole uu ammaanayay kama hirgelin puntland. waxay muddo dheer ay qareen u ahayd habka federaalka ah, hase ahaatee way ka hor istaagtaa dadka puntland ku nool inay arkaan maamul dadejin oo soo afjara talada ee ku ururtay garowe. dadka ayaa isweydiinaya in la qaadan karo in siyaasiyiinta puntland oo qaarkood ay dadku ku afgobaadsadaan federaalismka, si kasta ha ahaatee ay si gaara ula dagaalamayaan in puntland la wada leeyahay oo dhammaan dadka degani ay u siman yihiin. waxaa sidoo kale la isweydiinayaa in faroole uu jiifka ka toosinayo inay xisaabtamaan dadka reer puntland. dhaga kale warbixinada kale arrimaha soomaalida quseeyana, madaxda soomaalida ayaa dhowaan ku heshiisay in 40 cisho lagu soo afjari doono doorashada golaha shacabka. hase yeeshee muddadaasi oo ka bilaabanaysay 15 bishani kuna eeg 25 bisha February ayaa wajahaya caqabad loolana oo cusub oo u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. waxaa jira isbeddel ku dhacay labada guddi ee hogaaminaysay uguna muhiimsanaa doorashada oo ah guddiga maamulka doorashada ee heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo isna u taagan inuu kala saaro xubnaha buuq uu ka yimaado kuraasta. labadan guddi maanta midkoodna ma laha hoggaan. ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa guddiga xalinta khilaafaadka wuxuu ka saaray 7 xubnood oo uu ku jiro guddoomiyihii guddiga. ilaa maanta guddigaasi ma dooran guddoomiye. sidoo kale guddiga doorashada ee heer federaal ayaa iyagana xilkii waxaa laga qaaday guddoomiyihii guddigaasi maxamed xasan ciro. labada guddi midkoodna ma laha cid maamusha, waxayna ka dhigan tahay inaysan doorashada lahayn maamul. wakhtigani maqnaanshaha hoggaanka guddigani waxay curyaaminaysaa shaqada guddiga. sidoo kale waxay sababi kartaa dib u dhac ku yimaada jadwalka doorashada oo dhowaan ay saxiixeen xubnaha golaha wadatashiga qaranka. labada xubnood ee hoggaaminaysay guddigani waxaa lagu eedeynayay in labaduba ay aad ugu dhowaayeen xafiiska madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa doonaya in saameyn uu ku yeesho labadan guddi, halka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu doonayo in guud ahaan uu maamulo guddiyadani. waxaana sidoo kale shirka golaha wadatashiga qayb ka ahaa inay madax bannaanaadaan labadan guddi. labada hoggaan ee horey loo eriyey ee guddigani waxaa la aaminsan yahay inay saabsadeen kursiga yaasiin faray ku soo baxay, balse waxaa jira kuraas badan oo kaasi ka muhiimsan oo uu ku jiro midka uu isu sharaxay agaasimihii hore ee hay'adda naysa Fahad Yaasiin. hoggaanka guddiga mar walba saameyn xooggan ayuu ku leeyahay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo midka madaxweynaha oo labaduba ay ku loolamayaan shaqada guddiga, gaar ahaan cidda noqonaysa guddoomiyaha oo iyagu ay ku dagaalamayaan. wayna adag tahay in doorashadu ay socoto haddii aysan labada xafiis ee ugu sarreeya dalka guddigaasi aysan u madax bannaanayn shaqadiisa. si kastaba maanta waxaa loo fadhiyaa doorashada cusub ee guddiga doorashooyinka ee heer federaal, taas oo qabanqaabadeeda ay ka socoto hotaal Dhigaale. waxaa hadda si weyn ugu loolamaya guddoomiyaha ee guddiga doorashada ee heer federaal xubno oo ka socda labada xafiis ee ra'iisul wasaaraha iyo kan madaxweynaha.
shakhsiyaadka maanta ku loolamaya inay qabtaan guddiga doorashada oo aad ugu dhow xafiiska madaxweynaha waxaa ka mid ah cabdiraxiim cabdicasiis waxayna guddiga doorashada ay wadaan loolan xoogan si maanta isaga loogu doorto guddoonka ee guddigaasi ee kale ra-iisul wasaaraha iyo xulfadiisa ayaa waxay wataan musharax lagu magacaabay muuse geelle doorashada guddoonka cusub ayaa muhiim u ah doorashada golaha shacabka xogeenna wanaga intaan xoogaa kale idiin soo gudbin doono nabadgelyo.